madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jalasiyaad intii ay dhexda diyaaradaasi la sii socotay ayaa uu halhal u sii gacan qaaday dadkii la socday gagada dayuuradaha ee magaalada Berbera ayayna diyaaradaasi isla qadar saacad iyo bar ka bacdiya ay ku degtay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre halkaasi ay ku soo dhaweeyeen madaxda gobolka Waqooyi Galbeed waxaana halkaasi ubax qoorta u suray ubaxa kacaanka Oktoobar ee degmada Berbera oo iyadu ka tirsan gobolkaasi Waqooyi Galbeed iyadoo halkaasi ku soo dhaweeyay Jale Xildhibaan maxamed xaashi gaaniyo oo taliyaha qaybta 26aad ee xooga dalka Soomaaliyeed dadweyne aad u tiro badan ay hareeraha gagada dayuuradaha ay safnaan iyagoo u lulaya caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayay gagada dayuuradaha ee Berbera intii uu joogay ayaa xog waran ay ku siiyeen madaxda gobolka iyaga oo soo kormeeray qaybaha kala duwan ee cusub ee dhismaha ee ka socda gagada dayuuradaha ee magaalada Berbera iyadoo halkaasi ay barbar socdeen madaxweynaha xubnaha wafdiga iyo mas'uuliyiinta iyo dadweynaha ku nool magaaladaasi Berbera halkaasina shacabka si aad loogu tumay iyada oo ubaxa kacaankuna halkaasi ubax ay qoorta u galiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ayaa si kalgacaltooyay loogu sii sagootiyay gagada dayuuradaha ee magaalada Berbera madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminaya ayaa ka degay gagada dayuuradaha ee magaalada Jabuuti caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo halkaasi uu ugu diyaar soo dhaweyntiisa madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Xasan Guuleed Abdidoon oo si diiran oo heer sare oo kalgacaltooyay ay ku dheehantahay madaxweynaha uu soo dhaweeyay waxa kale oo halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mudane Muumin Bahdoon wasiirada kale ee ka tirsan golaha dawladda ee dalkaasi jamhuuriyadda Jabuuti iyo madax fara badan oo iyagu ka tirsan golaha baarlamaanka ee waddankaasi jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxa uu halhal u gacan qaaday mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti markii uu ka degay gagada dayuuradaha ee magaalada Jabuuti